kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Bisla TV ku soo dhawaada war wixii naga soo gaadhay kiga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale wararka waxa daawan doontaan qodobo xiiso badan intay socoto xilin tabinteena wareed balse aan ku markooda ugu waaweyn ee waqtigani madaxweynaha hore dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo. dowladda Kenya waxay war ka soo saartay ciidamadeeda ka jooga gudaha Soomaaliya. madaxweynaha Biden wuxuu soo saaray amarro cusub oo la xiriira COVID-19 qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan intii socota xilli tabinteena wareed balse haatan isku diyaariya faahfaahinta warka oo dhameystiran. madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo lagu doortay 4 ka mid ah senatarada ay Jubbaland ku leedahay aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyntii si weyn u bogaadiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa maadaama ay noqdeen dowlad goboleedka horeeyay ee bilaabay hirgelinta doorashada ee sanadka 2021. sidoo kale wuxuu dhambalan balyaa u diray senataradii maanta ku soo baxay doorashadii isagoona qabsoomida doorashada ku bogaadiyay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo xildhibaanada maamulkaasi. madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu dowlad goboleedyada kale ee dalka ugu baaqay inay si degdeg ah u qabtaan doorashooyinka isla markaana mas'uuliyad iska saaraan dardargelinta howlaha horyaala ee dhanka doorashooyinka. madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqi doona in malaayiinta qof oo u shaqeeya dowladda federaalka Mareykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama diyaar u noqdaan inay si joogto ah u maraan tijaabada coronavirus. Biden oo maanta la hadli doona shacabka Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19 sida xidhashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli istallaalin iyo in dadku ay kala fogaadaan. sida ay sheegeen ila ku dhow aqalka cad, madaxweyne Biden ayaanan qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalka inay istallaalaan. siyaasadan cusub ee dowladdu ku rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Mareykanka si aad ugu faafay cudurka cusub ee COVID-19 ama COVID-19. boqolkiiba 60 dadka qaangaarka Mareykanka ayaa si buuxda iskaga tallaalay cudurkani. garsoorka dalka Tunisia ayaa furay baaritaan la xiriira eedeymo sheegaya in xisbiyada siyaasadeed ay maalgelin shisheeye heleen ka hor doorashooyinkii qaran ee la qabtay 2019 sida xafiiska dacwadoogaha dalkaasi Arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. saddex xisbi ee baaritaanku ku socda ayaa waxay kala yihiin xisbiga Islaamiga waa xisbiga ugu weyn baarlamaanka Qol Tunis iyo dhaqdhaqaaqa Tunis. go'aankan ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu kala diray baarlamaanka xilkiina ka yaryar ra'iisul wasaaraha dalkaasi. tallaabadaasi oo xisbiga Ennahda uu ku tilmaamay inqilaab. waaxda dhaqaalaha ee garsoorka ayaa furtay baaritaanka 14kii kaasoo diiradda lagu saaray maalgelin shisheeye iyo aqbalidda lacago aan la garanayn halka ay ka yimaadeen intuu socday ololihii doorashada ee 2019 sida uu sheegay Muxsin Cali oo afhayeenka xafiiska dacwadoogaha. doorashooyinka baarlamaanka ayaa dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi waxaana ku xigay doorashadii madaxweynaha oo dhacday bishii Diseembar sanadka 2019 uuna ku guuleystay madaxweyne Qays Saciid. dowladda Malta ayaa qaadaysa mas'uuliyadda dilkii saxafiyad mar hore la dilay. baaritaano lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday dilkani. Valletta Malta baaritaan madax bannaan oo ku saabsan dilkii baabuurka loo adeegsaday ee loo geystay wariye Divine Kalisa oo ahayd saxafiyad la dagaalanta musuqmaasuqa ayaa Khamiistii lagu ogaaday in gobolku ku khasban yahay inuu qaado mas'uuliyadda kadib markii uu abuuray dhaqan aan ciqaab lahayn oo dadka kiiska bari wax ciqaab kala kulmayn saraakiishii ku lug lahayd dilkii saxafiyadda. Caroline Kalisa waxaa lagu dilay qarax aad u weyn iyadoo ka soo baxday gurigeeda bishii Oktoobar 16 sanadka 2017. dacwadoogayaashu waxay rumaysan yihiin in ganacsadaha ugu sareeya Yorkan Fenech oo xiriir dhow la lahaa saraakiisha sarsare ee dowladda uu ka dambeeyay dilka. Fenech oo maxkamad suga ah ayaa diiday dhammaan mas'uuliyadda kiiska lagu soo oogay.
saddex nin oo looga shakisan yahay inay bobkan qarxiyeen ayaa la qabtay bishii Diseembar ee sanadka 2017 mid ayaa tan iyo markaas qartay dambiga oo qayb ka ah gorgortanka qirashada wuxuuna ku dhammaysanayaa 15 sano oo xabsi ah. Labada kale waxay sugayaan maxkamad. Ninka dhexe ee isqartay wuxuu isu rogay markhaati gobol waxaana la siiyay cafis. baaritaanku ay sameeyeen hal garsoore oo hadda shaqeeya iyo laba garsoore oo howlgab ah ayaa lagu ogaaday in dhaqan aan xisaab lahayn uu abuuray musuqmaasuq qaybaha ugu sarreeya ee awoodda dowladda xilliga. weydiin iyo la xisaabtan la'aan ayaa markaa ku faafay hay'adaha kale ee xakameyn lahaa wax isdabamarinta iyo booliska, taasoo horseeday inuu burburo sharciga, ayaa lagu yidhi warbixinta guddiga oo uu daabacay ra-iisul wasaare Robert Abela. sicir bararka ka taagan Jarmalka ayaa sare u kacay heerar aan la arkin tan iyo sanadkii markuu ahaa 2008 bishii Luulyo. sicir bararka ka jira Jarmalka wuxuu kordhay 3.8 bishii Luulyo marka loo barbardhigo isla sanadkii hore, sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka federaalka ee dalkaasi Khamiistii. tani waxay ahayd markii ugu horeysay tan iyo bishii Agoosto 2008 ee heerka sicir bararka sanadlaha ah ee wadanka dhaqaalaha ugu weyn leh Yurub uu kor u kacay 3%. markii loo eego qiimeynta bilaha ah wuxuu kordhay 9% laga bilaabo Juun ilaa iyo Luulyo. Destatis oo ah magac Jarmal ah waa macadka tirakoobka waxa uu soo saaray qiimeyn celcelis ah iyadoo oo lagu saleynayo xisaab horudhaca. Haddaba su-aasha ayaa ah maxaa sababay kororka sicir bararka ka jira Jarmalka? Destatis wuxuu yiri hal arrin ayaa sabab u ah dhimista canshuuraha iibka ee 6 bilood ee sanadkii la soo dhaafay 2020, taasoo muujinaysa xogta markii ugu horeysay ama daatada lagu ogaado canshuuraha dalku soo xareeyo 6 biloodba mar, iyadoo uu hoos u dhac ku yimid dalabaadkii macaamiisha inta lagu guda jira xayiraadihii cudurka faafaha daran ee coronaviruska. dowladdu waxay qiimo dhimis ku samaysay faadka ama canshuurta 16% iyo 5% qaybta labaad ee sanadka 2020, halka ay markii hore ka ahayd 19% iyo 7%. qiimayaashii hore ayaa dib loo soo celiyay bilowgii sanadkan maadaama xarumihii ganacsiga dib loo furay. qodobka kale ayaa ah qiimaha tamarta. kuwani waxay u kordhayaan si dhaqso leh celceliska guud ee bilaha ah. intaasi waxaa sii dheer macaamiisha gubaya shidaalka oo loola jeedo warshadaha wax soo saarka ee ku shaqeeya matoorada shidaalka qaadanaya ama qaab kale waa inay bixiyaan €25 29.7 halkii tan oo ah carbon dioxide la saaray tan iyo bishii Janaayo. haatan aan dib ugu celiyo Cabdirasaaq. shirkadda ay dowladda Turkigu leedahay ee Afsad ayaa agabka miinada xeedha siinaysa dalka Burkina Faso iyagoo u siisay wadanka Azerbaijan oo haatan ku nadiifiya dhulka ay ka xoreeyeen ciidamada Armenia. waxa iibka agabkan ay Twitterka ku baahiyay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga, iyadoo noqonaysa markii ugu horeysay ee Afsad oo samaysa agabka ciidanku ay qalabkan u dhoofiso Afrika, maadaama dalkii koowaad ay Turkigu siiyaan agabkan culus ee Mehmet oo ahaa dalka Azerbaijan. Mehmet ayaa awood u leh inuu miinada nadiifiyo 95%. marka laga tijaabooyinkii laga qaaday ay soo saartay Afsad wuxuu leeyahay kigsi sare oo dhanka qaraxyada, uu miisaaman yahay, waa la isku halayn karaa, nafta qofkana uu badbaadin karaa, ayay tiri Afsad xilli ay warbixin ka dhiibaysay agabkani lagu wareejinayay dalka Azerbaijan. agabkani hore loogu wareejiyay dalka Azerbaijan haatan gacanta loo gelinayo wadanka Burkina Faso. 6 qof oo ay ciidanku sheegeen inay weli sugayaan ruqsadda duulista ayaa la xidhay maalin kadib markii maxkamad ku taal Paris ay taageerto xukunka madaxweyne ku-xigeenka dalka Bartamaha Afrika oo lagu eedeeyay inuu urursaday hanti qaali ah oo ay ku jiraan guryo raaxo iyo lacago sharci darra. waxay soo caga dhigatay diyaaradda ay la socdeen 6 askari Arbacadii, sababtuna waxay ahayd shidaalka oo ka go'ay awgeed. markaas ayaa waxa uu bilaabmay shaki iyo khalkhal maamul, ayuu yidhi afhayeenka ciidamada Faransiiska oo la hadlay wakaaladda wararka AFP, isagoo intaa ku daray in wadahadalladu u dhexeeya saraakiisha maxalliga ay socdaan.
maalintii khamiista raadiyaha dowladda Ecuadorial Guinea ayaa soo wariyay in diyaaradda helikobtarka ay degtay amar la-aan. Warar ayaa sidoo kale waxay tibaaxeen in 6 askari su'aalo lagu weydiiyey saldhigga dhexe ee Beta. wararka isla Faransiiska ayaynu ku jirnay. Dowladda Faransiiska ayaa soo rogtay amar laga bilaabo 9 bisha August aan goobaha waaweyn sida garoomada, maqaaxiyaha, shilimooyinka iyo goob kasta oo bulshadu ku kulanto, sidoo kale safarada tareenada, basaska iyo magaalo ka magaalo haddii loo socdaalo inay qasab tahay in qof walba uu wato kaarka ama warqadda caafimaadka oo ka turjumaysa in la tallaalay ama tijaabo cudurka coronavirus oo wato muddo ka yar 48 saacadood. qaar ka mid ah bulshada Faransiiska iyo xisbiyada mucaaradka ayaa go'aankan diidan, iyagoo dalbanaya in meesha laga saaro, balse waa amar dowladeed oo ka weecasho male. waa tahay qodobkaas ayaa kunya gabagabo u ahaa warka Bisla TV ood xilligan si toos ah u daawanayseen. intaynu ku kulmayno warka xiga iyo wararka kale ee soo kordha waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.